Barcelona oo dacwad ka gudbisay garsoorihii kulankii Atletico sabab kooxda Barcelona ayaa si rasmi ah cabasho ugu gudbisay UEFA kadib guuldaradii 2-1 ay ka soo gaartay Atletico Madrid kulankii lugta hore ee quarter-finalka UEFA Champions League. Kooxda uu hogaamiyay Hans Flick ayaa si weyn uga cabanaysa go'aamo ay ku tilmaameen kuwo muran dhaliyay, gaar ahaan kaarkii casaa ee la siiyay Pau Cubarsí iyo go'aano la xiriira VAR oo ay Barcelona u aragto kuwo saameeyay natiijada. Dhacdada ugu weyn ee muranka dhalisay ayaa timid daqiiqadii 54 kadib markii goolaha Atletico Juan Musso uu kubad ugu dhiibay daafaca Marc Bubil gudaha diilinta ganaaxa, kadibna Bubil uu gacanta ku qabtay kubadda iyadoo aan garsooruhu dhigin rigoore. Barcelona waxay aaminsan tahay in go'aamadaas aysan waafaqsaneyn sharciga ciyaarta, isla markaana ay si toos ah u saameeyeen natiijada kulanka. Cabashadan ayaa imaanaysa iyadoo Barcelona ay isku dayayso inay cadaadis saarto UEFA ka hor kulanka lugta labaad, halkaas oo ay u baahan doonaan inay soo celiyaan natiijada si ay ugu gudbaan semifinalka. Haddaba daawade, miyay kula tahay cabashada ay gudbisay kooxda Barcelona in uu yahay mid ay kaga guuleysan karto xiriirka UEFA? Aragtidaada qaybta hoose ee comment-iga nagula wadaag. Aad baad u mahadsantahay. Fiid wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad si share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.